السلام عليكم حالو برلاي هي علمي دينيغا مع علمي سماويغا ee loogu yaacayaa cilmiga maadiga haddaba dad badan oo dunida ku noolaya maalin walba sheega inay soo saareen daraasado cusub oo ay sameeyeen waxayna dhammaan sheegooyinkaasi astaan iyo calaamad u yihiin in aakhiru zamaanku soo dhawaaday ama se lagu guda jiro waayo hore umaynaan arki jirin arrimaha noocaas ah balse marka aynu aayadda aynu soo sheegnay dib u jaleecno waxaynu arkaynaa in arrintaasi tahay wax jiro sidoo kale wax inoo sheegay axaadiista in cilmigu yaroonayo jahliguna dib u soo faafayo cilmiga la sheegayana ma aha maadiga ee waa cilmi diiniga waxaynu aragnaa dad aad ugu talax tagay cilmiga maadiga oo wax aqoon haba yaraatee u lahayn cilmiga diiniga waana ka jahliga ku cad axaadiista nabiga naxariista nabadgelyo korkiisa ah aayaddan soo sheegnayna waa aayadii hore oo macnaheedu ahaa waana calaamad ka mid ah calaamadaha yawmal qiyaamaha markii samaanku dhamaaday ee dadkii ku wada yaacayaan cilmiga maadiga haddaba naxariista nabadgelyo korkiisa ah nabigeenu waxa uu yiri xadiiska macnihiisu waxaa ka mid ah shuruudaha saacada cilmiga la qaado jahliguna soo ifbaxo sinaduna faafto cabista khamruguna bato dhammaan arrimahaas waa arrimo maanta taagan oo aynu taaban karno oo marag doon ah guud ahaan dunidan ku faafay dhammaantoodna waa masaa'il diini ah oo aan wax xiriir ah lahayn tiknoolajiyada waxaanu xadiiskaasi noo cadaynayaa in jahliga la sheego yahay jahliga dhinaca cilmiga diinta ee aanu ahayn dhinaca cilmiga maadiga iyo tiknoolajiyada waxaana jahliga diiniga wata khalkhal dhinaca fikirka iyo sidoo kale madaahibta iyo dhinaca ruuxdaba oo ruuxda haddii waxaan sax ahayn oo aan sal iyo raatoona lahayn lagu hago oo lagu hogaamiyo way dhibtoonaysaa haddaba ibnu khalduum ayaa shan oo lagu bixin jiray waqti iyo qarash fara badan intaas oo ay dheer tahay tayada hawsha ee aad u saramartay tacliinta oo ah mid aan sinaba uga maarmin la jaanqaadida tiknoolajiyada casriga waxaa la gudboon baahda tacliinta barataba inay ka wada faa'iidaystaan hannaanka tiknoolajiyada uu saamaxaysa labada dhinaca maadiga iyo dhinaca diinigaaba computer wax la yiraahdo computer waa wax ka mid ah tiknoolajiyada heerka cusub ee la gaadhay caalamku waxa uu guuray adeegista aaladda computerka kaas oo sahlaya waxyaabo badan oo kaaga u noqon kara baahda tacliinta sidaas darteed baruhu waa inuu aqoon u lahaado isticmaalka computerka hadba inta aad ka aadan baahida la xiriirta maadaama uu dhigi lahaa markay hagaagsan tahay aqoonta baruhu uu leeyahay adeegsiga aaladda computerka waxa uu fududeynayaa qaabka u gudbin karo adeegsiga uu bixinayo sida waqtigiisa iyo sida moobilka kale loogu bixinayo waa aaladaha cusub ee imika soo kordhay beeqaaminayo una gudbin karo xogta lagama maarmaanka ay la xiriirta mowduuca uu gudbinayo ka faa'iidaysiga maktabadda elektarooniga marka uu baruhu aqoon u leeyahay adeegsiga computerka waxa uu awooday in xog badan oo xiriir leh uu kala soo baxo maktabadda ama computerka waraaq cad iyadoo wuxuu ku biyeysan yahay taasina ugama baahna wax qoris ah maadadiisa uu ka heli karo maktabadda elektarooniga ee ku kaydsan internetka waa hubaal uu baran karo isku kaliifka raadinta xogaha la xiriira maadadiisa uu ku wax soo saar badan doona baraha kor taagan inta kooban ee uu dhowr sano bixinayay adeegsiga aaladda projectorka maadaama dunidan ay gabaabsi ku tahay nidaamka waxbaarista hore sabuuradda iyo jeesada waxaa laga maarmaan ah in baruhu adeegsan karo aaladda projectorka kaas oo gacan ka geysan kara inuu soo bandhigo duruusta qaab maqal iyo muuqaal ah si ardaydu uga bogtaan xogta taason ee casharka baruhu bixinayo qaabitus oo taabsiye ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh